Jasiiradda Lamu waxay ku taalaa xeebta waqooyi bari Kenya ee Badweynta Hindiya, waana xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Lamu waxay ku dhowdahay xadka Soomaaliya iyadoo magaalada Kismaayo ee Soomaaliya u jirta dhowr boqol oo kiiloomitir dhinaca koonfur. Waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu soo jiidashada badan uguna taariikhda dheer Afrika. Waxay leedahay muhiimad gaar ah oo ku saabsan dhul dhaqameedka juqraafi ahaan dhanka Kenya. Jasiiradda Lamu waxay leedahay cabir ku dhowaad gaaraya ilaa 610 kiiloomitir oo laba jibaaran kiiloomitir iskuweer ah. Waxay ka kooban tahay dhul aad u yar marka loo eego jasiiradaha kale ee gobolka, laakiin waxay leedahay saameyn weyn oo ku saabsan dhaqanka, taariikhda iyo dalxiiska. Jasiiradda Lamu waxay leedahay qiyaastii 17 kiiloomitir oo dherer ah iyo 12 kiiloomitir oo dhinaca ballaca ah, taas oo ka dhigaysa mid aad u yar marka loo eego dhul ahaan. Laakiin waxay leedahay qurux dabiici ah iyo taariikh hodan ah. Jasiiraddu waxay qayb ka tahay gobolka Lamu iyadoo magaaladu ay tahay caasimadda gobolka. Jasiiraddan yar waxaa lagu gartaa quruxdeeda dabiiciga ah, xeebaha ciidda leh iyo biyaha badda ee buluugga ah. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu cajiibsan ee Lamu waa maqnaanshaha gawaarida. Magaaladu waa mid xasiloon, taasoo ka dhigaysa meel aad ugu habboon in looga nasto qaylada iyo saxmadda magaalooyinka waaweyn. Lamu lagama isticmaalo wax gaari ah, taas cagsigeeda waxaa laga isticmaalaa dameeraha iyo doonyo dhaqameedka loo yaqaano dhows ayaa ah hababka ugu caansan ee gaadiidka, taasoo siinaysa jasiiradda jawi gaar ah oo nabad ah. Jasiiradda Lamu ma aha kaliya hanti dhaqameed, laakiin sidoo kale waa kheyraad dhaqaale. Dalxiisku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee dhaqaale ahaan ka soo gala jasiiraddan, iyadoo dadka booqanaya jasiiraddu ay aad uga helaan xeebteeda deggan, goobaha taariikhiga ah, dhaqankeeda firfircoon iyo deganaanshaha jasiiraddan. Dalxiisku waa isha ugu weyn ee dhaqaalaha uu ka soo galo jasiiradda, iyadoo dadka u soo socda jasiiraddu ay u yimaadaan si ay u sahmiyaan taariikhda, dhaqanka iyo bilicda dabiiciga ah ay leedahay Lamu. Xaaladda nabdoon ee jasiiraddani waxay soo jiidanaysaa dalxiisayaal raadinaya meel ay ka helaan deganaan iyo nasasho. Waxaa sidoo kale jira ganacsiyo yaryar oo maxalli ah oo taageeraya dhaqaalaha deegaanka, sida farsamooyinka gacanta iyo dalxiiska dhaqanka. Lamu waxay soo jiidataa kumanaan dalxiisayaal ah sanad walba, iyadoo tiradaas ay u dhaxayso 60,000 ilaa 100,000 oo dalxiisayaal ah sanadkii. Dalxiisayaasha gudaha ee Kenya ayaa kaalin weyn ka qaata tirada guud ee dalxiisayaasha booqda Lamu. Dadka Kenyaanka ah ayaa jasiiradda u yimaada fasax iyo nasasho si ay u sahmiyaan taariikhda iyo dhaqanka Swahili-ga. Dalxiisayaasha reer Yurub waxay ka mid yihiin kuwa ugu badan ee booqda Lamu, gaar ahaan dalalka Germany, Faransa iyo Italiya. Lamu waxay leedahay soo jiidasho gaar ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha Yurub, kuwaas oo raadinaya meelaha dabiiciga ah iyo kuwa taariikhiga ah ee gaarka ah, iyo taariikhda bariga Afrika. Dalxiisayaasha Mareykanka iyo Kanada sidoo kale waxay ka mid yihiin kuwa soo booqda jasiiradda Lamu, iyagoo xiiseynaya dhaqanka, taariikhda iyo fursadaha dalxiiska ee jasiiraddan. Dalxiisayaasha Aasiya oo ay ku jiraan Jabbaan, Shiina iyo Indiya waxay sidoo kale booqdaan Lamu iyagoo raadinaya waayo-aragnimo gaar ah oo ku saabsan dhaqanka Afrikaanka. Dalxiisayaasha Carabta, gaar ahaan kuwa ka yimaada Sacuudi Carabiya, Imaaraadka iyo Qatar, waxay sidoo kale booqdaan Lamu maadaama ay xiiseynayaan dhaqanka Islaamka ee jasiiraddan iyo taariikhda xiriirkii ganacsiga ee ka dhexeeyay Carabta iyo bariga Afrika. Lamu waxay soo jiidataa dad kala duwan oo raadinaya nasasho, sahmin dhaqameed iyo waayo-aragnimo taariikhi ah oo ku saabsan bariga Afrika. Jasiiraddu waxay ahayd meel muhiim ah oo ku taalla waddooyinka ganacsiga ee u dhexeeya Carabta, Hindiya iyo Afrika, taasoo gacan ka geysatay isku dhafka dhaqamada hodanka ah ee maanta lagu yaqaano Lamu. Magaaladu waxaa caan ku ah dhismayaasha Swahili ee si wanaagsan loo ilaaliyay, kuwaas oo ah dhaqan ka yimid Carabta, Baasiyiinta Hindiya iyo Yurub, taasoo ka turjumaysa dhaxalka kala duwan ee jasiiraddan. Diinta Islaamku waxay door weyn ku leedahay nolosha dadka degan Lamu. Jasiiraddu waxay leedahay in ka badan 30 masjid oo qaar ka mid ah ay yihiin kuwo taariikhi ah. Masjidka Riyadh oo la aasaasay qarnigii 19aad ayaa ka mid ah masjidyada ugu weyn uguna caansan Lamu. Diinta Islaamka ayaa saameyn weyn ku yeelatay dhaqanka iyo nolosha bulshada Lamu.
iyadoo dadku degan ay ku dhaqmaan xeerarka diinta iyo dhaqanka Islaamka. Jasiiradda Lamu waa meel gaar ah oo leh bilic dabiici ah iyo taariikh qoto dheer iyo dhaqan hodan ah. Inkastoo ay tahay jasiirad yar, waxay bixisaa waayo-aragnimo dhammaystiran oo ku saabsan taariikhda, dhaqanka, quruxda dabiiciga ah. Lamu waxay leedahay waxyaabo badan oo loogu talagalay dalxiisayaasha oo ay ku jiraan xeebaha quruxda badan, dhismayaasha taariikhiga ah, iyo dhaqankeeda soo jiidashada leh. Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan jasiiradda waa qalcadda Lamu oo ay dhiseen Cusmaaniyiintii horaantii qarnigii 19aad. Qalcaddu waa astaanta adkeysiga iyo muhiimadda taariikhiga ah ee Lamu. Jasiiradda Lamu waxay hoy u tahay noocyo kala duwan oo xayawaan ah oo soo jiidasho leh, kuwaas oo qaar ka mid ah ay yihiin kuwa la daawado oo xiiso leh. Xayawaanadani waxay ku nool yihiin deegaano kala duwan oo ku yaala jasiiradda, sida kaymaha yaryar, dooxooyinka, iyo xeebaha. Jasiiradda Lamu waxay leedahay noocyo kala duwan oo daanyeero ah, kuwaas oo ka mid ah xayawaanada ugu caansan ee jasiiradda lagu arko. Daanyeerada Lamu, sida daanyeerka Colobus, waa kuwo aad u soo jiidasho leh, waxaana lagu arki karaa dhulka kaymaha iyo hareeraha jasiiradda. Xeebaha Lamu waa meelaha ay digaagaduhu ay ku dhalaan, gaar ahaan xilliyada gaarka ah ee sanadkii. Digaagaduhu waa xayawaan cajiib ah oo soo jiidanaya dadka xiiseynaya dabeecadda iyo badbaadinta deegaanka. Xeebaha iyo biyaha ku hareeraysan jasiiradda Lamu waxaa laga helaa kalluun kala duwan, kuwaas oo soo jiidasho cajiib ah leh. Waxaa kale oo ay ku habboon yihiin dadka xiiseynaya kalluumaysiga. Kalluumaysigu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaha Lamu. Badda ku hareeraysan jasiiraddu waxay bixisaa kheyraad kalluumaysi oo ballaaran, waxaana ka howlgala kalluumaysato badan. Kalluunka iyo cuntooyinka badda ee laga helo Lamu waxaa loo dhoofiyaa gudaha Kenya iyo dalalka kale ee gobolka ku hareeraysan. Lamu waxay hoy u tahay noocyo badan oo shimbiro ah, kuwaas oo ka mid ah xayawaanada la daawado. Shimbiraha kala duwan ee Lamu waxaa ka mid ah kuwa aad u qurux badan oo leh midabyo kala duwan, kuwaas oo ku nool kaymaha yaryar iyo hareeraha biyaha. Aargoosatadu ayaa sidoo kale lagu arki karaa jasiiradda Lamu, gaar ahaan meelaha ay dadku ku yar yihiin. Waa xayawaan aad u firfircoon oo xiiso leh. Maroodigu, oo ah xayawaan weyn oo aad loo jecel yahay in la daawado, waxaa lagu arki karaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan jasiiradda Lamu iyo nawaaxigeeda. Maroodigu waxaa badanaa lagu arkaa dhulka qadiimiga ah, kaymaha iyo dooxooyinka. Booqashada kaymaha Lamu waxay dalxiisayaasha u oggolaanaysaa inay arkaan noocyo kala duwan oo xayawaano ah, gaar ahaan daanyeerada, shimbiraha kala duwan, iyo noolaha kale ee degan jasiiradda. Kaymaha yaryar ee Lamu sidoo kale waxay bixiyaan fursad lagu barto dhirta iyo xayawaanada ku nool gobolka, taas oo soo jiidan karta dadka xiiseynaya bey'adani inay wax ka bartaan. Meelaha biyaha durdurada ee jasiiradda Lamu waa aagag yaryar oo biyo ku soo ururaan ama ay ka sii socdaan inta lagu guda jiro xilliyada roobka, laakiin ma jiraan durdurooyin waaweyn oo sida joogtada ah u socda. Durduradan yaryar waxaa badanaa laga helaa dooxooyinka yaryar iyo kaymaha ku yaala jasiiradda, gaar ahaan xilliyada roobabka. Marka biyaha roobku ay soo da'aan, waxay si tartiib ah u socdaan iyagoo maraya dhulka jasiiradda. Dooxooyinka ku yaala Lamu waxay yihiin dhul hooseeya oo biyaha roobka ay ku ururaan kuna socdaan xilliyada roobka. Dooxooyinkan yaryar waxay door muhiim ah ka ciyaaraan sugidda biyaha dhulka hooseeya ee jasiiradda. Durdurada biyaha ee dooxooyinkan waxay abuuraan meelaha biyaha ay ku ururaan, kuwaas oo muhiim u ah nolosha dhirta iyo xayawaanka deegaanka. Kaymaha ku yaala Lamu, inkastoo ay yihiin kuwo yaryar, waxay sidoo kale leeyihiin meelo biyo ay ku ururaan xilliyada roobka. Biyahaas waxay ku habboon yihiin koritaanka dhirta iyo nooleyaasha kale ee ku nool kaymahaas. Dhirta kaymahan yaryar waxay sidoo kale ka qayb qaataan biyaha roobka, taas oo ka caawisa ilaalinta biyo gaar ah oo gudaha oo loogu talagalay deegaanka. Meelaha biyaha durdurada ee jasiiraddan Lamu waa aagag yaryar, waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan taageeridda nolosha deegaanka. Inkastoo aysan jirin durdurro waaweyn ama webiyaal rasmi ah, biyaha durduradan yaryar waxay muhiim u yihiin nolosha dhirta iyo xayawaanka. Sidoo kale, dadka ku nool jasiiradda